Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal idil ahaantiinba kulanti wacan oo wanaagsan halkani waa radio gada codka gobolka gada muujad rirkeedu yahay 89.1 megahertz kuna soo dhawaada war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray warkan waxa uu diyaar ah aniga Cabdullaahi Maxamed Xamuud qodobada warka aad ku maqli doontaan waxa kamid ah dalada daawe ay ku mideysan yihiin ururada haweenka ee degmooyinka Doolow Balad Xaawo iyo Luuqaya ayaa kulan lagu taageerayo nabadda ku yeeshay degmada Doolow maamulka magaalada Buurdhuuba iyo guddiga caafimaadka Buurdhuuba ayaa kormeer ku tagay isbitaalka guud ee magaalada Buurdhuuba dekada magaalada Kismaayo laga soo saarayo haraadigii maraakiibtii hore lataliyaha madaxweynaha dawladda ee arrimaha Carabta Islaamka oo beeniyay warbixintii lagu daabacay wargeyska Al-Wadan kuwaasi waxay ahaayeen warkii gudaha ugu door corona haatana caalamka wararka caalamka ugu door corona waxa kamid ah 17 qof oo ku dhimatay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka Pakistan waasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door corona haatan ku soo dhawaada iyagu fiisan balse qadar yar ee adeeg bulshada shirkadda isgaarsiinta Somtel Hello Somtel معقول ما Hello Somtel sidii roobka lan sugaya Somtel lan sugahaya hadii hiraabta helana farxad fayla yaa ka dhawaayana sida telefoon qaadowkii walka roysadi Somtel soohin ii hadud male Somtel wali ku helaasay telefoon qiimidiis eed anjamano okay Somtel wali ka helaasay telefoon qiimo jaban oo sidii fadaasadan ka doowaasa simakaarka Somtel isi aroowaako simakaarka Somtel ho Somtel way sugay Somtel xuduud male Somtel soohin iyo xuduud male Somtel Soomaalisima Somtel haddaba dhegeystayaashu waxay naga soo wixi karaan simkaarka Somtelka Everly 2 44 2 ama Everly 2 44 6 haddaba xafiiska Somtel wuxuu ku yaalaa ka soo horjeedka shirkadda Dahabshiil tahay intaas aynu ku dayna qadarkaas yar adeega bulshada halku idinkaga imaanayna waa radio gada codka gobolka Gedo muujad rirkeedu yahay 89.1 megahertz aan ku bilaaway dalada daawe ay ku mideysan yihiin ururada haweenka ee degmooyinka Doolow Balad Xaawo iyo Luuq ayaa kulan lagu taageerayo nabadda ku yeeshay degmada Doolow warbixintaasina waxa ay noo soo diray Cabdinuur Cismaan Cabdi kulankan oo ay soo agaasintay hay'adda SWSO isla markaana ahaa mid markaasi baaq nabadeed loogu dirayay musharaxiinta madaxweyne ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa lagu qabtay degmada Doolow Soomaaliya ee gobolka Gedo waxaana ka soo qayb galay ururada haweenka gobolka Gedo gaar ahaan degmooyinka Balad Xaawo Luuq iyo Doolow kuwaasi oo ku mideysan dalada deegaanada daawa gudoomiyaha ururka haweenka degmada Balad Xaawo ahna afhayeenka dalada daawa Canab Cabdi Cabdullaahi ayaa u mahad celisay hay'adda SWSO iyadoona baaq nabadeed u dirtay musharaxiinta dowlad goboleedka Jubbaland waxaan u soo istaagay maantay ama aan shirkan uga soo qayb galnay anagoo ka kala nimid saddexda degmo Doolow Balad Xaawo iyo Luuq nin kasta oo musharax ah oo dowlad goboleedka musharax u ah waa muwaadin inuu sharax sharci u leeyahay laakiin se isku sharaxaysaa inaad ero iskuma sharaxaysaa inta meel tuurataan mikrofoonada isu doomar waxa isu sharaxaysaa muwaadiniin baatii naftirkiina dad soo qabtaa iska dhigina waxaa la rabaa inaad xaqi aad leedihiin aad u soo istaagtaan xaqi aadna lahayn aad ka leexataan waxaan rabnaa doorashada Jubbaland oo maanta taagan ilaahay baa yaqaan horta ninka heli doono nin kasta oo ilaahay u calfo oo ka soo jeeda dowlad goboleedka Jubbaland in uu nabad ku soo dabaalo deegaanka uu rabo inuu ka sii shaqeeyo
xareede xasan yarow gudoomiyaha ururka haweenka degmada luuq gudoomiye ku-xigeenna ka ah ururka dalada daawa iyo qaar ka mid ah hooyooyinka kulanka ka soo qayb galay ayaa dhankooda ka codsaday shacabka iyo dhammaan mas-uuliyiinta isu soo sharaxday xilka madaxweynenimo inay ilaaliyaan dastuurka Jubbaland. ajandaha waxa weeye waa fariin inaan u gudbino Jubbaland musharaxiinteeda madaxdeeda odayaasha dhaqanka aqoonyahanada haweenka ganacsatada guddiga doorashooyinka saxaafadda indheergaradka iyo odayaasha dhammaan intaan xusay iyo intaan ilaaway intaba waxaan rabnaa inaan baaq nabadeed u jeedin baaqaas oo ah annagu waxaana deeqda nabad colaadinama deeqda waxay colaad tahay waan ogaanay waad garanaysaan xilligii dowladdanadii dhexe ay burburtay iyo ilaa xilligan ifrisiga u dhaxeeyo haddaad wax doonaysaan annagu shacabkii baa nahay waa idin sugaynaa had iyo jeerkii noo soo baxa ayaa noo hogaana mar haddaan hogaankii sugayno ma rabno inaad maaragtay untuurta isku dhagtaan oo dagaalantaane waxaan idin leenahay dalkiina iyo dadkiina ka xishooda ilaahay ka xishooda qabrigiina u naxa waxaan u taaganahay haddaan nahay gabdhaha gobolka Gedo qaasatan gabdhaha Jubbaland in aan doorashada maxaa ka dhacaysa Kismaayo aanan khilaaf ayna ku dhalanin oo ayna ku dhamaanin maama Xaawo Cabdiraxmaan Cabdi gudoomiyaha dalada deegaanada daawa isla markaana ah gudoomiyaha haweenka degmada Doolow ayaa bogaadisay nabadda ay haysato dowlad goboleedka Jubbaland iyadoona sidoo kale baaq nabadeed u dirtay shacabka iyo dhammaan cid walba oo markaasi doonayso xilka madaxweyne ee Jubbaland inay muujiyaan kalsooni iyo isu tanaasul waxaan iskugu nimid oo aan ooga soo kacnay annagoo kala maqnayno saddexdii degmo waxay iskugu timid in ay maanta ku baaqaan nabad inay ku baaqaan inaan nabad ku baaqnaan meeshaan maanta iskugu nimid haddaan nahay gabdhihii Soomaaliyeed haddaan nahay gabdhihii Jubbaland oo dalada daawo waxaan ugu baaqaynaa gogol nabadeed waxaan rabnaa in la xurmeeyo waxaan rabnaa gabdhaan nahay in codkanaga la qaato in la xurmeeyaan rabnaa waxaan nabad ugu baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan waxaan ugu baaqaynaa dowlad goboleedka Jubbaland iyo musharaxiinta u taagan in ay ka noqdaan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland maamulka magaalada Buurdhuubo iyo guddiga caafimaadka Buurdhuubo ayaa kormeer ku tagay isbitaalka guud ee magaalada Buurdhuubo warbixintaasi waxaa magaalada Buurdhuubo inoogu soo diray wariyaheeni Cabdulaahi Macruuf waxaa in muddo ah burbur iyo daawo la'aani ay ka jirtaa isbitaalka guud ee magaalada Buurdhuubo subaxnimadii saaka ahayd ayaa waxaa kormeer ku tagay maamulka degmada iyo guddiga caafimaadka Buurdhuubo isla markaana uu horkacayo isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland ee magaalada tani Buurdhuubo maamulka degmada iyo guddiga caafimaadka ayaa si wadajir ah u dalbaday in si degdeg ah wax looga qabto xaaladda isbitaalka guud ee magaalada tani Buurdhuubo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali Sambuur gudoomiye ku-xigeenka magaalada tani Buurdhuubo iyo madaxa isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland ee magaalada tani Buurdhuubo Maxamed Aadan Maxamed ayaa si wadajir ah oo la hadlay warbaahinta waxa ayna hoosta ka xariiqeen in 4 sano ee ugu dambeysay wax shaqo ah aan laga qaban isbitaalkani magaalada tani Buurdhuubo ayadoo ay weeliyaan agaasimaha caafimaadka degmada guddiga isbitaalka iyo dhammaan xubno kale oo bulshada rayidka ka socdo waxaan maanta soo gaarnay isbitaalka degmada Buurdhuubo isbitaalkan saad ogtihiin waxaa shaqo uu shaqeeyo ugu dambeysay 30 bishii 11 2015 magaaladana waxaa ka jira xanuuno aad u fara badan oo ay ka mid yihiin xanuunka hergebka oo qaabka uu hadda u socdo la garan laayahay malaariyada oo qandho fara badan oo dadkii wada daadisay shuban biyood iyo qandho iswato jadeeco nafaqa darro haweenka oo meel kasta oo ama hadda tuulaha ahaato oo tuulooyinka yararka iyo tuulooyinka waaweyn oo degmada hoos imaado oo inaba yaraatee dhibaato iyo ma garanaysaa maalin ka dambe ay ku soo siyaadayso wax daryeel caafimaad aanan helin ka dowlad goboleedka Jubbaland mar walbo
oo aan gaarsiinana inta badan waxaad moodaa inaanan jawaab dhiifoon aanan helin ummadda intaa tirada leeg 62 tuulo iyo magaalada intaan leeg inay caafimaadkii oo nolosha basic u ah inaan weyno oo isbitaalkanaga uu saan u ekaado ma garanaysaa dhammaan bulshada oo dhan bay dhibaysaa dhammaan institutionada ay qusayso caafimaadka inay wax ka qabtaan oo dhan waxaan ugu baaqaynaa inay si degdeg ah isbitaalka Buurruubo ay u soo fiiriyaan oo xaaladdan ay la socdaan carna marka qaylidanadaas cid kastoo dhibayso iyo cid kastoo Soomaalinimada iyo mas'uuliyadda ay dhibayso inay arintanadan ay dhag u raariciyaan maantana isbitaalka waxaan u nimid inaan bal isha ku qabanno inta uu dhan yahay burburkiisa iyo qaabka uu yahay isbitaalka waxyaabaha maartay hadda muhiimka uu ku yahay waxa kamid ah ayaga oo qalabkii hay'adda uga guurtay uu dhex yaalo qalabkii oo maartay uu yaalo isla markaana uu u baahan yahay dawo iyo maartay iyo in loo helo shaqaale ka shaqeeya oo tasiilaadkii ay ku shaqeyn lahaayeen ka mas'uuliyad ahaan ka degmo ahaan iyo ka maamul ahaan intaba isbitaalka waxaa ka muuqata baahidaas ka agaasimo ahaan waxaan maaragtay ka isku duwa ahaan waxaan ka codsanayaa dhammaan hay-adaha ay quseeyaan arrintan in baahidan mujtamaca la soo daboolo sida ugu wanaaga badan loo soo daboolo isla markaana wax walba oo ama ka hortaga ama daweyna oo waxyaabaha ugu wanaagsan ama xagga caafimaadka ummadda loo qabto marka insha Allah taala waxaan rajaynayaa wixii waqtiga ka dambeeyo in codsiga baahida ummaddan ku saabsan isbitaalka la qaban doono Cabdullaahi Macruuf Radio Gedo magaalada Buurdhuubo ee madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan oo ay weheliyaan wasiirada amniga caafimaadka shaqada iyo shaqaalaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha gudoomiyaha gobolka Gedo iyo senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa maanta hoyga uu ka degan yahay magaalada Kismaayo ku booqday ugaas Maxamed ugaas Xaashi ugaas Xirsi mas'uuliyiinta iyo ugaas Maxamed ugaas Xaashi ugaas Xirsi ayaa kulan kooban oo yeesheen waxa lagaga hadlay in ay sii socdaan wada hadallada isla markaana waxa ugaas si diiran ugu mahadceliyay booqashada mas'uuliyiinta waxaan uu sheegay in ay wada hadalladu wax ku ool ay noqon doonaan dekada magaalada Kismaayo laga soo saarayo haraadigii maraakiibtii hore dekada magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa saaka ka bilowday ka soo saaristii haraadigii qaar kamid ah maraakiibtii hore ugu qustay dekada waxa ku sugan shaqaale isugu jira Soomaali iyo ajaanib oo ka howlan sidii ay dibadda ugu soo saari lahaayeen biraha haraadiga maraakiibtii hore kuwaasi ay dhibaato xoog leh ku qabaan maraakiibtii doonaysay inay ku soo xirato dekada madaxweynaha Jubbaland Maxamed Axmed Islaam Axmed Madoowe ayaa dhawaan u jeediyay codsi beesha caalamka in ay ka taageeraan sidii dekada magaalada Kismaayo ugu soo saari lahaayeen maraakiibta ku burburtay markii ay dhacday dowladda dhexe ee Soomaaliya dekada Kismaayo ayaa kamid ah dekadaha ugu ballaaran dalka Soomaaliya iyo sidoo kale il dhaqaale muhiim u ah guud ahaan dowlad goboleedka Jubbaland waxaa jira dekado Soomaaliya ku yaalo oo laga guray haraadigii biraha maraakiibtii hore hase ahaatee kuwa hadda qaarkood shaqeeyo ay ugu weyn tahay dekada Muqdisho badii haraadigii laga soo saaray la taliyaha madaxweynaha dowladda ee arrimaha carabta ee islaamka oo beeniyay warbixintii lagu daabacay wargeyska Al-Wadan warbixintaasi waxa inoo soo diyaariyay maxamed maxamuud abdiraxmaan maxamed shariif la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya arrimaha carabta iyo islaamka Sheekh Cali Maxamuud Xasan ayaa beeniyay warbixin lagu daabacay wargeyska Al-Wada ee ka soo baxda dalkaasi Sacuudiga taas oo lagu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku tuhunsan tahay dawladda Qatar taageerida argagixisada Al-Shabaab Sheekh Cali oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in wargeyska uu fasiraad khaldan ka bixiyay wareysiga uu siiyay iyadoo aan la marin habaabinayo nuxurka hadalkaasi la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee arrimaha carabta iyo islaamka ayaa tilmaamay in aysan Soomaaliya xamili karin in loo soo talaalo khilaafyada gobolka balse taasi bedelkeeda ay u baahan tahay in si muuqda loo garab siiyo
looguna taageero shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed sidii ay mar kale cagtooda ugu istaagi lahayn. Xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo dalalka boqortooyada ee Sacuudiga ma ahan mid uu saameynayo marin habaabinta uu sameeyay wariyaha diyaariyay warbixintan. Si taas la mid ah aysan waxyeelo ku noqon warbixintan la marin habaabiyay xiriirka aan la wadaagno dowladda Qatar sababtoo ah dhammaan dalalka Carabta ee aan bahwadaagtanahay waxaana la wadaagnaa xiriir walaaltinimo oo wanaagsan. Sheekh Cali Waajis ayaa xusay mowqifka wanaagsan ee dadka Soomaaliyeed ay ka taagan yihiin khilaafyada dalalka aan bahwadaagtanahay. Mowqifkaas oo uu ku saabsan yahay dhexdhexaadnimada iyo in laga shaqeeyo isu soo dhaweynta, heshiisinta iyo xoojinta iskaashiga walaaltinimo ee lama huraanka ah horumarka iyo xasiloonida gobolka. Gudoomiyaha Golaha Shacabka oo la kulmay madaxweynaha Puntland waxa warbixintaasi mar kale inoo soo jeedinaya waryaheeni Maxamed Maxamuud Abdiraxmaan. gudoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa magaalada Garowe kulan kula kulmay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni. Labada mas'uul ayaa waxay iska xog wareysteen xaaladaha guud ee dalka iyo sidoo kale xoojinta iyo dardargelinta wada shaqaynta dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo xubin ka ah dowladda dhexe. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ugu mahadceliyay gudoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal iyo wafdigiisa booqashada ay ku tageen Puntland isagoo oo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay. Dhanka kale gudoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa kula dardaarmay shacabka reer Puntland iyo madaxweynahooda in ay ka fikiraan sidii u gaari lahaayeen horumarkan ka sii ballaaran. waa tahay saaxiibayaal waxaad naga dhageysanaysaan codka gobolka Gedo muujadirirkeedu yahay 89.1 megahertz. Studio-ha koowaad ee ku leenahay degmada Dolow Soomaaliya ayaa si toos ah nagala socotaan. 17 qof oo ku dhimatay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka Pakistan. 17 qof ayaa ku geeriyootay markii diyaarad yar oo nooca militariga ah oo maanta Talaada ku dhacday meel ku dhow magaalada Rawalpindi ee dalka Pakistan sida ay mas'uuliyiintu u sheegeen wakaalada wararka AFP. Afhayeen u hadlay hay'adda badbaadada maxalliga oo lagu magacaabo Frank Pett ayaa sheegay inay heleen 17 meyd ah, 12 yihiin dad rayid ah, halka dhaawacuna uu ku sheegay 12 qof kuwaas oo la geeyay xarumaha caafimaadka. Qaybta warfaafinta militariga Pakistan ayaa sheegtay in diyaaraddu ay ku jirtay howlo tababar ah markii uu shilka dhacayay, iyagoo intaasi ku daray in saraakiisha badbaadada damiyeen dabka dadku ku dhaawacmayna ay u qaadeen isbitaalka. intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray. warkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdullaahi Maxamed Xamuud, dhanka farsamada waa Maxamed Maxamuud Abdiraxmaan Maxamed Shariif. warka waxaa isku soo dabariday Nuruddin Xasan Deeq. ciduu warka dhaafan waxay dib ugu daalacan karaan barta baraha bulshada aan ku leenahay Facebook iyo weliba YouTube-ka Radio Gedo.